السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الصحافة وعليكم السلام يا دمانتين. waxaan rabaa sidii caadadu ahayd inaan idinla wadaago sanad walba warbixin dambiyeedka Puntland ka dhacay 12 bilood oo soo dhaafay wixii kiisas ciqaabeed ah oo dalka ka dhacay ayaan rabaa inaan idin faahfaahiyo haddii aan laydmo sagaalka gobol oo Puntland wixii kiis ka dhacay haddii aan laydmo gobol baan u dul istaagayaa haddii aan laydmo waayahay dambiyada dhacay dil baa ugu horeeya gobolka Nugaal waxa ka dhacay 9 dil bari waxa ka dhacay 55 karkaar waxa ka dhacay 6 cayn waxa ka dhacay 19 mudug waxa ka dhacay 59 sanaag waxa ka dhacay 1 haylan waxa ka dhacay 4 sool waxa ka dhacay 9 total sanadkiina soo dhaafay wax maxkamadaha Puntland la horgeeyay 162 case oo dil ku saabsan average kooduna waxa weeye 20.3 qofsi Nugaal waxa ka dhacay 30 case bari waxa ka dhacay 18 case karkaar waxa ka dhacay 7 case cayn waxa ka dhacay 6 case mudug waxa ka dhacay 13 case sanaag waxa ka dhacay 6 case haylan waxa ka dhacay 1 case sool waxa ka dhacay 9 case total waxa weeye 9 case oo kufsiga inay ka dhaceen Puntland sanadkii ina soo dhaafay 2019 kiisaska way badan yihiin waxa dhacay tuugo waxa dhacay daroogo dagaal safayna laba guur khiyaamo dhac tahriib tumajir tahriib isku daydil dhaqan xumo dhaawac dhulal la isku hayso lahaansho hanti gaar ahaaneed iyo mid qaran burcad badeed kuma jirto sanadka waa wada sanadka 2019 wax burcad badeed oo dalka ka dhacay ma jirto tacaddi dumar loo geystay khasaare hantiyeed nabadgelyo xumo shabaab tacaddi caruur hanjabaado totalada dhacay markii la isku geeyo kiisaska ka dhacay Puntland sanadka 2019 ka waxa weeye 4379 kiisaska ciqaabta oo xafiiska xeer ilaalintu ay horgeysay maxkamadaha dhamaantood oo go'aan ka soo baxay waa 4379 waxa jira shilal ayaguna ka dhacay Puntland oo iyaguna ka mid ah kiisaska ciqaabta bari waxa ka dhacay 432 kiis shil Nugaal waxa ka dhacay 349 haylan waxa ka dhacay 86 sanaag waxa ka dhacay 188 cayn waxa ka dhacay 145 sool waxa ka dhacay 147 gardafo waxa ka dhacay 55 mudug waxa ka dhacay 233 karkaar waxa ka dhacay 198 waxay u kala baxaan shilalkaas shilal dhimasho keenay kuwa dhaawac culus keenay kuwa fudud kuwa gaadiid dumay iyo guryo maxaan ku raad dameero mooto ari geelo baalayaal baaskil waxaas waxa weeye wixii khasaare soo gaaray oo iyaguna maxaan ku raad meesha ku baabay hadii average kuna waxa weeye 1833 shil oo ka dhacay Puntland sanadkii 2019 markii la isku dardaro average-ka 2011 anagu xogtaan ururinay intii ka horeysay maana ururin laakiin 2011 ilaa 2019 kiisaska ka dhacay oo maxkamadaha la horgeeyay oo go'aan laga gaaray oo ciqaabta ah totalkooda waxa weeye 35685 taas waxay muujinaysaa shaqada baaxadda leh ee garsoorka Puntland iyo xafiiska xeer ilaalintu ay qabteen sanadaha ina soo dhaafay 2011 oo si kala qaadi kara
kiisaska ciqaabta dhacay 2011 waa 522 2012 waa 1959 2013 waa 2525 2014 waxaa dhacay 2390 2015 waxaa dhacay 5680 2016 waxaa dhacay 4726 2017 waxaa dhacay 4455 2018 waxaa dhacay 4549 2019 hadda aan ku jirana waxaa dhacay 4379 isku darkooda guud ahaan waxa weeye 35685 intaas waxa weeye waa warbixinta ku saabsan kiisaskii dhacay oo ciqaabta ahaa oo Puntland ka dhacay 2011 iyo 2019 oo isugu jira kiisas ciqaab oo dhacay iyo shilal intii shil ka dhacay Puntland hadii aan leeyahay waxa rabay wax yar oo laxda yar inaan ku daro oo ku saabsan aan ka maqlay ayaanta tan anigu xafiiska ka maqnaa fasax baan ku jiray xigeenkayga maxaad xareed ayaa xafiiska joogay waxa jira qadiyad ku saabsan kiiskii Aisha oo sida aan la soconno lagu galay maxkamadaha gobolka Nugaal qaybihiisa kala duwan maxkamadda darajada koowaad maxkamadda Faarka maxkamadda sare ay galeen saddex nin oo ku eedeysnaan ay ku eedeeyeen kiiska lagu xafiiska xeeraantu uu ku eedeeyay dil uu ku eedeeyay ayaguna go'aankoodii markay ka tashadeen maxkamadu ay ka tashadeen in lagu xukumay saddexda nin dil haddaba xafiiska xeer ilaalintu wuxuu u gudbiyay maxkamadda sare wuxuu u gudbiyay 10kii bishii 11aad 10kii bishii 11aad 2019 ayuu wuxuu u gudbiyay qoraal kaga dalbanayo in la fuliyo kiiska dilka dadku waxay u qabaan kiiska madaxweynuhu inuu fuliyo kiiska madaxweynuhu shughul ku leh maxkamadda sare ayaa go'aan ka gaarta kiiska xilliga qofka dilsugaha dilka lagu fulinayo iyo xilliga meesha iyo madasha iyo goobta iyo saacada xilliga wixii ka dambeeyay waxaan maxkamadda ka sugaynay sare waxaan ka sugaynay inay go'aan ka qaadato laakiin duruufo badan oo jira awgood ma suuragelin ilaahay amarkii inay kiiska maxkamaddu ka gaarto inkastoo aan maqlay gudoomiye xalay inuu ka hadlay oo yiri kiiska waxba naga dhiman maxaan ku yiraahdaa qoraallo dhaxal koob ah ayaa naga dhiman oo ka dhiman maxaan ku yiraahdaa codsiga xafiiska xeeraalinta laakiin dokumentigaas insha Allah waan wareejinay maanta oo taariikhdu tahay 11 bisha maxaan ku yiraahdaa koowaad 2019 waxaan ku wareejinay maxkamadda sare waxayna ahayd sharciyan kiiska meesha uu ku dhamaado inuu sameeyo isagu dokumentiga inuu diyaariyo oo dadka haday codsadaan halka inuu faylka maxkamadda inuu dokumentiga laga helo ayay ahayd laakiin ma dhicin anaga waxaan islahayn dokumentigaasi wuxuu yaalaa maxkamadda sare anaga waxaan ka sugayay kaliya codsi baan ka sugayay taas weeye waxa kale oo aan rabnaa inaan laxda yar yadana ka yiraahdo qoraalka aan qoray oo maxkamadda aan u qoray waxa la soo dhigay barta internetka la soo dhigay qoraalkaas wuxuu yaalay sida aan ka warhayo xafiiskayga oo xafiiska warqadda ka baxday xafiiska maxkamadda sare iyo xafiiska wasiirka cadaaladda dokumentigaanu waa dokumenti dawladeed oo ka hadlaya qof in nafta laga gooyo ma aha dokumenti qof gaara iyo cid gaara la siin karo oo lagu aamini karo waxaa nasiib darro ah dokumentigaasi inuu dad maxaan ku yiraahdaa wax magarata inuu gacanta u galay meel ay ka baxday saddexda xafiis bay mid ka baxday ilaa idankii waxaan rajaynaynaa shaqada waxaan soo galnay maanta xalay baan la soo taageereeyay warqadaas xafiiska ka baxday marka xafiiska dokumentiga aan anagu warqada arkay ku arkay waa warqad jirta weeye waa warqadii aan qoray maxkamadda sare aan qoray iyo xafiiska iyo wasiirka cadaaladda aan ogeysiisay dokumentiga marka aan qoray iyo faylka aan warqada ka qoray aniga kaliya ahay cid kale ma hayn labada xafiis oo kalena waa olaayay marka insha Allah waxaan sameyn doonaa inaan baaris ku sameeyno cid ay ka baxday warqadaas waa warqad sir ah oo aan la rabin inay ogaadaan mas'uuliyadda maxkamadda sare iyo wasiirka cadaaladda cid aan ahayn haddana waxaanu aragnaa in ay warqadaas ay gacmo kale maxaan ku yiraahdaa ay gashay halkaasna waxaan ku yiraahdaa nalo ka sheegay warqadaas inay sidaa ku baxday marka waxaan ku sameyn doonaa warqadaas baaris rasmi ah ku sameyn doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim isla arinta wax yar oo kala laxday yar oo kale ayaa waxaan rabay inaan ku qabo dadku
ma kala yaqaaniin waxna dad badan wax ma akhriyaan laakiin dagta wax laga maalaa waxa jirta wax badan oo la isku khaldo hada su'aalo badan oo hada madaxweynaha la weydiinayo waxa kamid ah xukunka hada fulinta Caaisha qodobada dastuuriga 57 iyo 58 iyo 59 baan idin akhriyaa oo ku saabsan kala socnaanta iyo qaybaha dawladda ay u qaybsanto 57 qaybaha dawladdu waxay u qaybsantaa saddex qaybood qaybta sharci dejinta waa golaha wakiilada qaybta fulinta golaha xukuumadda iyo qaybta garsoorka oo maxkamadaha dawladdu saddexda laamood bay u kala qaybsantaa qodobka 58 kala socnaanta qaybaha dawladda qayb kasta waxay u madax bannaan tahay gudashada waajibaadyada xilalka iyo awoodaha dastuurka u jideeyay qaybina qayb kale ma hoos timaado marka laga reebo arrimo gaar ah oo dastuurku si cad u qeexay waa fahamsan banda Soomaaliya ku hadlaya baan malinaya waa faqradda koowaad faqradda labaad fulinta waajibaadka iyo xilalka qaybi leedahay qayb kale waa ka reeban diiriya si clear bay u qorantay golaha xukuumaddu waa guddi fulinta wixii fulin ah ayaga iska leh golaha sharci dejinta oo maxaa ku dhaca baarlamaanka wixii sharci dejinta dalka ayaga iska leh golaha garsoorka wixii garsoor ku saabsan ayaga iska leh qaybina qayb kale shaqada ay leedahay uma hoos timaado faqradda saddexaad qofna xubin kama noqon karo isku mar wax ka badan hal qayb oo dawladda ka mid ah aan wada xiraaliyo guud baan shaqo kale kama qaban karo laamaha dawladda qof kasta oo dawladda u shaqeeyana waa sax shakhsi kasta oo dawladda ka mid ah saddexda laamood laba laamood kama wada shaqeyn karo hal laam buu ka shaqeyn karaa qodobka 59 wada shaqeynta qaybaha dawladda iskaashiga iyo wada shaqeynta saddexda qaybood ee dawladdu waa waajib dastuuri taasna wala fahmaya waxayna ku wada shaqeynayaan sida sharciga waafaqsan marka taasuna waxa weeye waa mid aan raba inaan idinku muujiyo waxa la aadaa shaqadii garsoorka ayaa mararka qaarkood waxa la aadaa wasaaradda cadaaladda sida halkan ku cadna saddexda hay'ad wasaaradda cadaaladda waxay ka mid tahay golaha fulinta marka wixii golaha fulinta ah wada shaqeyn dastuuri oo waajib ah naga dhaxaysa saddexda hay'ad laakiin qolo walba waxay u madax banaan tahay shaqada ay qabanayso oo dastuurka iyo shuruucda dalka ay siiyeen bay qabanaysaa